asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan askhiyaaray mar kale waa idin salaamay soo dhowaada waa mar kale iyo hoyga wararka caalamka waxaan idin hayaa warbixinno cusub oo ku saabsan bariga dhexe xasuuqa qasa weeraro israa'iil iyo ay isweydaarsanayaan iyo ansaarallah waxaan kaloon hayaa libnaan oo iyadana wax ka soo kordheen waxaan kaloon idinka hayaa syria iran haddii ilaahay idankeeda leeyahay ukraine iyo russia intaba si gaagaaban ayaan u dalmari doonaa oo xogaha cusub ee ka soo kordhay si aan maaragtay idinla wadaago soo dhowaada mar kale iyo hoyga wararka caalamka maanta waxaa leeyahay mudaharaadyo waaweyn baa ka dhacay israa'iil waddanka oo dhan mudaharaadyo aad u culus oo ay leeyihiin dagaalka in la joojiyo waa in maaragtay dadka la haysto la soo daayo waxaa arrintaas hareeyey duqaymo ay geysteen nimanka ansaarallah oo sawaariikh ama gantaaladii dheereeyey la dhacay eeraboorka weyn ee bangori arrintaas waxay keentay kala carar iyo dadkii mudaharaadaya inay godad kala doontaan culays fara badan bay u keentay geedi socodkii la doonayey mudaharaadka ayay hakad gelisay balse waxaa la leeyahay markii laga soo baxay godadkii halkii ayaa mudaharaadyada laga sii waday israa'iiliinta waxaa la sheegayaa inay duqayn ka geysteen koonfurta sanca oo meel korontada soo saari jirta ay burburiyeen arrintaas way xaqiijiyeen ansaarallah lafteedu way xaqiijiyeen runtii waxaa loo malaynayaa inay drones iyo wax ku weerareen lama sheegin kulle diyaaradaha meeshaas tiga lama dhihin diyaaraduhu waayahan dhanba meesha waa ka cararayeen oo cabsi weyn ayaa meesha ka jirtay maadaama difaacir oo halis ah meesha soo dhigteen ansaarallah ay haystaan libnaan waxaa la sheegayaa burbur baaxad leh ayaa dowladdii libnaan kusoo food leh waa sida ay xisbullah sheegayaan kadib markii xukuumadda halkaas ay aad iyo aad ugu dadaaleen iskuna dayayaan in ay hubka dhigis lagu sameeyo xisbullah iyadoo arrintaas socoto arrimaha gudaha sidaas la isugu haysto ayaa israa'iiliintu haddana duqaymo waxay ka geysteen goobaha deegaanada ay dadka taageerayaasha xisbullah ay degan yihiin halkaas oo runtii ay burbur baaxad weynle u geysteen kadib duqaymo ay ka geysteen waxaa kaloo jirta syria ayaa waxaa laga soo sheegay gobolka halibo in isagana duqaymo ay ka dhaceen oo la garanayn xataa cid u sababtay qaraxyo waaweyn oo dhulka gariiriyey oo culculus baa ka dhacaa la leeyahay laakiin ilaa hadda meel loo saaray iyo cid lagu eedeeyo midna ma jirto in uun maaragtay xisaddu ay kacsan tahay syriana sideedaba xisadeedu waayahan oo dhan waa kacsaneed waxaa weli dadku shacab waa dad wada hubaysan waa dad dagaal muddo dheer socday ilaa 2011 ku jiray runtiina aan maaragtay ilaa hadda aan dhinac wax laysugu duwin halis aad iyo aad u weyn ayaa syriya ka jirta cabsina laga qabo in dagaallo lagu hobtoo kale ay dib uga bilowdaan iran waxaa ka jira leeyahay waxay sheegtay xukuumadda iran ciidamada maaragtay cilaalada kacaanka in la qaqabtay kooxo u shaqaynaya israa'iil oo maalin walba waa la qabtaa ugaarsi baa ka socda runtii maalin walba dad baa ay qoorta ka gooyaan ay qabtaan runtii arrintaas way isu soo tartay waana mid si xawli ah ku socota cabsi badanna ay dadka qabto habeenka guryaha la iskala baxayo raad hadduu ku soo galo ama mataqaanaa lays yiraahdo qofkaasu inkastoo runtii dadka maxkamad la geeyo oo baaritaan dheer la sameeyo laakiin ugaarsi aan caadi ahayn ayaa ka jira oo meeshaas laga soo sheegayaa xaggaas iyo gaza waddanka china wuxuu ka hadlay
xasuuqa qasa waxayna dusha uga tuureen maraykanka oo ay yidhaahdeen xasuuqa qayb buu ka yahay maraykanku xaquuqul insaanka xagga dembiye dagaal xagga haddii ilaahay idankeeda leeyahay humanitarianka dhinaca runtii waxyaaba faxashnimada ee halkaa ka dhacaya foolxumada ah ee shacabka xasuuqa aan loo meeldayin burburinta nolosha bini aadamka laga burburinaya qasa maraykanku qayb weyn buu ku leeyahay waana isaga iyo kuwa wax dilaya isaga mid bay ka yihiin warkaas chineeska ayaa ku dhawaaqay qasa waxaa lasoo sheegayaa 62,000 ayay gaartay kor u dhaafta hadda dadka dhimashada dadka inta la og yahay waxaa iyadana aan xisaabtaas ku jirna leeyahay 10,000 oo dhismayaasha gudahooda ku jira oo aan fursad loo helin in lasoo saaro aas fiicanna loo sameeyo oo lafahoodii ay mataqaanaa dhismayaashaas ku hoos jiraan wax xisaabahoo laga hayana aanay jirin ayadana waxaa kaloo jirta kaza runtii israa'iil waxay doonaysaa in magaalada kaza ay dadka ka saaraan arrintaas xamaas waa ka hor timid duqayn bay ku wadaan waxay isku dayayaan dadka inay sidii xoolihii ay didiyaan duqayn aan loo meeldayin oo waxay runtii ku wadaan aad iyo aad u xanuun badan bini aadamnimada ka baxsan dadaan hubaysnayn dadaan waxba haysan dadaan cunto haysan ayaa haddana diyaarado iyo dronis dabada loo qabtay sawaariikhda gantaalada dhulka laga rido kuwa badda laga soo ridayo iyo kuwa diyaaradaha laga ridayna ay u dheer yihiin mudaharaadyo ballaaran baa caalamka oo dhan ka socda oo dunida khaasatan reer galbeedka aad iyo aad loogu taageerayo kaza looga soo horjeedo xasuuqa halkaa ka socda iyaguna joogtay noqdeen mudaharaadyadaas hadday maraykan noqoto hadday noqoto ingiriis hadday noqoto jermal hadday noqoto faransiis gebi ahaanba wadamada reer galbeedka oo dhan waxay noqotay wax joogto ah in mudaharaadyadaas ay socdaan ugu dambayn waxaan rabaa inaan xaggaas iyo ukraine aan aadno iyo ruushka runtii waxaa lasoo sheegayaa sidaan barnaamijka horreeba kusii horudhaca mataqaanaa kusoo bandhignay in runtii heshiis horudhaca lagu gaaray alaska heshiiskaasna uu yahay wax hadda lala wadaagayo oo maraykanka uu rabo inuu reer yurub iyo ukrainiinta uu la wadaago ruushka laftiisuna oo xulufadiisa la wadaago oo wax laysku ogyahay ay noqoto runtii heshiiskaas horudhaca 2 qodob ayaa ka maqan baa leeyahay oo aan weli laga heshin una baahan in diiradda la saaro qodob waxa weeye qodobka Zelensky weeye ruushku wadaxaajoodka Zelensky waan la geli karnaa bay leeyihiin laakiin waxba lama saxiixan karno sababtoo ah sharciyad ma haysto waa in Ukraine doorasho laga qabtaa waa in cid sharciyad haysataa la helaa hataa asaga ha noqdo hadduu doono si aan hadhow loo dhihin heshiisku wax kama jiraan weeye oo nin aan sharciyad haysan ayaa saxiixay iyo sheeko noocaasa saysan u imaan hadhow dood iyo muran uga imaan putin wuxuu taagan yahay waa in la helaa cid heshiis geli karta oo ukraina waa in la helaa qodobka labaad oo isagana runtii meesha yaallaa wuxuu yahay waa arrinta dhulka iyo xuduudaha arrinta dhulka iyo xuduudaha laftiisa loogama doodin meesha la yiraahdo alaska magaalada anchorage markii la isugu yimid doodaas lama furin labadaas qodobna waxaa la yidhi ukraine iyo waxaa ka doodi doona iyo ruushka qodobkan xuduudaha dhulka lala kala wareegayo haddaan bal wax yar aan milicsano maabka ukraine runtii waxaa muuqata dhulkan hadda calaamadaysan waa luhanski donetski sabroshiya kherson kremeya intaas waa dhulka hadda uu ruushku gacanta ku hayo waxaa soo raacaya qarqayf duleedkeeda sumi iyo halkaa kore oo iyadana
ay gacanta ugu jirto waxa uu rabaa ruushku uu dooda putin ay tahay in donetski dhulkan la banneeyo donetski intaas mataqaanaa xuduudda ka calaamadaysan ayaa wax gacanta ku haya ukraina haysata oo laga kicin kara laaya dhulkaas waa rabaa uu leeyahay waa in laga kiciya ukraine waxaa kaloo jira dhulkan kale oo sabroshiya iyo kherson oo iyagana laba qaybood ay ka maqan tahay ruushkuna ilaa hadda uu xoog ku qabsan kara la'yahay laakiin dagaal ba'an oo aad iyo aad u culus ayaa halkan ka socda goobahaas runtii dhulkan ruushku labadan gobol luhanski iyo donetski laysla garay laakiin kuwan doodan bay geli doonaan laakiin hadda heshiis iyo xuduudaha si loo kala waxeeyo labadan qaybood waa in laga baxaa waa sida uu ruushku taagan yahay asaguna beddelkeeda uu halkan iyo kharkiif ka baxo haddii kaloo dagaalku sii socdo laba waxyaabood oo kale ukraine waa waayi waana xisaab xumida zelenski ayay waxay ku waayi kartaa magaalada caasimad xigeenka ee kharkiif iyo magaalada odesa oo odesa haddii la qabsadana bilaa bad bayba noqonaysaa ukraine runtii arrintaas ukraine horena waa loogu sheegay intay goor tahay oo xaaladdu ay safaraha ka bixin oo adnaan dhul aad iyo aad uga weyn aadnan ku waayin inay aqbalaan ayay ahayd mar hore ahayd inay aqbalaan laakiin hadda fursad baa taalla waana tan uu trump sheegayo in loo baahan yahay in dhulka la kala beddesho dhulka kala beddelkiisu waxa weeye waa qaybtan kore oo ruushka uu gacanta ku hayo kharkiif duleedkeeda sumi iyo in ma garanaysaa iyaguna ay halkan ka baxaan way ku adagtaa la leeyahay ukraine meelay hadda gacanta ku haystaan intaasoo sanana ku dagaalamayeen dhiig fara badanna uga daatay runtii in ay yidhaahdaan hadda waa bannaynaynaa ama lagu qasbo inay banneeyaan su-aasha kale taalla waxay tahay reer yurub ayaa iyaguna caqabad ku ah waana sababta wixii lagu heshiiyey waxaana fikirkaas ka yimid baa la leeyahay xaggaas iyo putin inaan waxaan lasoo bandhigin oo la qariyo sababtoo ah waxay ka baqayaan putin iyo trumpa in la carqaladeeyo arrinta oo war cusub iyo wax laga daba keeno oo kanasaana iyo si ay mataqaanaa yurubiyanku aysan waxaan u carqaladayn ayaa sheekadii oo dhan sheeke qarsoodiya laga dhigay laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa war jiraaba cakaaroo imaan asxaabay wararka soo baxay doona midba midku ka cusub yahay ka mataqaanaa ka saameyn badan yahay ayaan idiin soo bandhigi doonaa haddii eebba idmo waxaan idinka codsanayaa barnaamijka inaad noo ballaarisaan inaad qaybisaan inaad maaragtay sheerta iyo liketa iyo haddii ilaahay idankeeda leeyahay subscribe-kaba aad ugu roonaataan si uu barnaamijku tayo u yeesho dad badanna ugu soo xirmaan barnaamijyo kale ayaan ku soo dari doonaa haddii eebba idmo waana ballaarin doonaa annaguna gogasha iyo wararkaba waa ballaarin doonaa mataqaanaa warar waafi ah oo dhinac walba taabanayana waa idiin soo gudbin doonaa haddii eebba idmo waa idin salaamayaa wali axaddii baan ku jirnaa isniin baan u boqoolaynaa waa fiidnimo axada inta aan maaragtay kanoo kale kaga kulmaynana oo barnaamij kale oo kan la mida aan isku arkaynana waxaan idiin rajaynayaa caafimaad iyo nabad waxaan idinka codsanayaa oo kale commentska soo badiya meesha aad joogtaan xaaladdu sida ay tahay jawigu siduu yahay camalka meesha laga hayo ma garanaysaa sida ay nolosha caadigaa tahay xaaladaha kala duwan ee lagu sugan yahay amnigu sida uu yahay maaragtay cunsuriyado iyo wixii ajnabi wixii dibadaha jooga gudaha xaaladdeeda sida ay tahay dadka gudaha waddanka soomaaliya jooga fikradihiinna taladiinna aragtidiinna intuba abshiray noo yihiin ee noo soo gudbiya haddii eebba idmo intaan kanoo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu